bixiyo geeridana ilaahay baa keena saddexda xaalaan aan kulli idin kula talinaya isaga kabta uu ka galo bal hadduu kursi ku fadhinayo ciduu xukumayo hadday xawaadla noqonayso ha xukumo antaasaan idin leeyahay ha xukumo xawaale hadduu kursigu ku fadhinayo hadduu ina adeerkii deysan waaye oo sharaf iyo milgo kula noolaan waaye xawaale ha xukumo kursiga ku fadhiya hadduu ragaya warban ninka ilaahay idinku dhaarshay ninka xawaale ee ola watay inta u soo dhaxfriisay shirka ay kuwana gacanta soo qabteenay keeneen ma kuwaas abda ka sugaysaan war ma kuwaas sharaf iyo nasabnimo aad la wadaagi kartaan lama wadaagi kartaan waa hadda damiir leedahay damqanayso oo wax garato waay kan maanta qoriga dhaforka laga saaray ee shalayna taagay ba ku yiri war tug ba tabanala tamashiga ba dhulkan ana iskale kii nacfigeeda laba liqay ان كهل وايي كنا gacanta soo qabtay sidii naag loo galbinayo gurigeedii gacanta soo qabtay shirki soo dhax fariisay bal ilaahan idinku dhaarshay waxa aad ka hadlaysaan iyo waxa nolosha aad ku nooshiin ma sheegi kartaan saak waa su'aal isweydiin mudane kuwa hadda meeshan caayada ku soo qorayo ee le maxaan ku raadaaye Cabdirashiid awaligi fadhina Cabdirashiid wuxuu ku xaaraa tuujay buu ku xaaraa guriga uu galo kama soo baxo lagu waardiyeeyo kama soo baxo war ma kaasaa garta inuu saakay degmo wax tara iyo dad laga sugaya ninka tuuji ku xaaray ee habeenkii hadday masquul qabato qolku intuu ka soo baxaan masquul gal karin ilaahay idinku dhaarshay haddaba marka saddexda aan idin sheegay haddaad inuu mid ku dhaqaaqdaan oo mid un ka mid aad samaysaan waad guulaysateen haddaad samayn weydaan waxaan idin sheegayaa haddii gunnimo la marksanayo inaad guntihiin baan idin sheegayaa aniga markaan beledweyne soo istaago waxa aan samayn doono markaas aad arki doontaan waxa aan samaynayo markaas aad arki doontaan go'aankayga aniga laabtii waayahan ku haystaa waxa aan samaynayo marka waxaan idin sheegayaa waxa aad ku nooshihiin ee nolol aad u moodaysaan ee dhulka la fadhidaan cadowna iskama dhicin kartaan hadduu sokeeye yahay iyo hadduu shisheeye yahay midna iskama dhicin kartaan inta aad saakay farur idin kor saaran yahay oodnan inaad ka dhiidhidaan ina diyaar u ahayn axmed ingiriisi maalahay sarrifna ayna iska qaban karin bal ilaahay idinku dhaasiye kursi kuma fadhiyo oo maanta xasaanad ma hayo waad u jeedaa waad aamusi haddii nin habeenkii gudayo markuu gudayo intaad u fiirsato maad falaarta dhinac ka gelisid ilaahay bay leedahay aakhire هلا سرفي أحمد جريس إسقابل لادي أو آخرية دون إنسيتشي أو تلك كلا جي أو محمد راد أرنجان نمك أذيجي أفرق لا تكسح أرنجان غير علمي لعكتي كشلون جيني ينو كأرورين ينو ملول معناها مرتا إلا مريين أو محمد راد دايلها يكونين محمد راد ملايك حمر كيكونين markaan reero cilmi runta u sheegnay oo ku niri war sidan ma aha wax ku biinaysan lacagtan meel ku socotay dadka isweydiin bay u baahan tahay meeye lacagta abaari lagu qaaday aawe xagee geeyeen mooyi umada markaasay wax reero cilmigu horta waa dad saas u dhagweyn oo ana 100 sano markay heeriyada saarnaata mar un kaca hadda waxaan idin sheegayaa Axmed Ingiriisi maalaya sarfis ka qaban laadeen iyo furur waa saddex nin kaliya mid afraad kuma jiro saddexaas qof iska qaban laadeen habari nin ay dhashay ka fulaysan hooyo ma dhalin saddexdaba ilaahay baan ku dhaartay xarkooda kama kacan markaasa ilaa qofku moogta markuu jaajuus yahay oo uu munaafaqada ku shaqeeyo ilaa saacad kasta wuxuu aaminsan yahay ilaa waa ninka kun ka dakanood ku jira
inaan loo jeedin buu moodayaa, inaan la arkin buu moodayaa. laakiin waxaan kuu sheegaynaa meel walba waa laga arkaa, waana lagu ogsan yahay, waana lagu jeedaa. ee dadka dad iimaan la ahoo oo maxaan ku raadaay ka xishoonaya waxa aad ku jirtaan, ka xishoonaya. haddaba marka heerka idin gaarsiiyeen Aranjan, laba reer oo cilmi ah oo saakay meel u wada jeedida kuma jirto. hadduu cadow saaka idin soo weeraro xawaadlaha way ku dhegeysanayaan, ha ka faa'iidaystaan. ilaa anigu inaan ka guura go-aan ku gaaray, dhulkaygana waan ka gadanay, haddana xawaadla ka gadanay, waan idin sheegay idinkama qaranayo. waan ka guurayaa dhulka aniga, ma deganaanaya aniga. intuu reer oo cilmi sidaa yahay wallahi inaana deganaanayn, oo billahi inaana deganaanayn, inaana waxaan ku falaynin. kobta aad ka gashay nacfiga adaa qaata maalin walba, lurkana anuu isaaran yahay. haddaan hore u yeeli jiray waa diiday, waan diiday aniga. gun kulama noolaan kara aniga meel. gob baan ahay, markaan gob ahayna gobnimaan u noolaan karaa mooyo gunnimo uma noolaan kara aniga. marka waa ku salaamayaa maxaan ku rahdaa gret walaalayaal. marka qofka bini-aadanka mar unbuu gulgishaa heeryada iska rogaa, si nasabnimo u noolaadaa, si nasabnimo ah uu u noolaadaa. ma aha inaad war ilaahan idinku dhaarshay maalintii 1993 ilaa yowmun haada. bal hadalkiigu fiirsada, 1993 ilaa yowmun haada waxay wax yar oo sharif ku noolayd. markuu xasan khaliif ka dhintay ayaa u dambeysay feerfeer iyo macal raage uu ka guuray, baa sharif u dambeysay. halkaasaa reer cilmi gobolka ugu dhacay ee gobolka ugu dumay. kama hana qaadin wixii ka dambeeyey wax gobonnimo reerow cilmi la yidhahdo, kama hana qaadin. kuwii yara dhaqdhaqaaqa sameynayey the movinka sameynayeyna maxaan ku rahdaay axmed ingiriiskaasoo miran baa loo adeegsaday. markaasaa meesha laga soo raacdiyey, oo iskaga soo tageen inay wax dilaan iyo in la dilo. markay u taagan tahay iskaga soo haajireen. marka lama wada ahaanayo reer cilmi kala oo habeenka xalabtay, lama wada ahaan doono walakat, lama wada ahaanayo. ninka doonayo macnaha ku jiifow reerow cilmi in la sii wada ahaado, never waa habeenka xalabtay, waa lagu kala tegay taayada. gudkeedina waxaa soo gelbiyey reer umaadi waxay ku jiifaan haddii feerfeer laga kaco oo xawaadla qaataan inay iyaga buuri kore ay si sharaf la ugu noolaanayaanay la tahay. mangaabka caqligiisaan idiin sheegayahay, laakiin never ever waa habeenka xalabtay. wallahi haddii feerfeer laga tago iyo abaalay inaan buuri korna lagu gamayn, lagu gami maayo. marka waxaan rabaa dhabta iyo xaqiiqda jirtaan idiin sheegaa, saddexdaa xaala mid u yaala haddaa rabtaa inaad ku noolaataan dhulkiina. ibraahim yuusuf maxamed biile marka waxaan markeeda dhihi lahaa saddexdaa xaala midkaad yeeli lahaydeen ayaad gobonnimadiina ay idinkaga jirtaa. haddaad saddexdaa xaala mid ka mid a aad samaysaan, si sharafle dhulkiina wada ugu noolaan kartaan. manaha haddaad u haystaan xabadda markay dhag kugu tiraado inaad hore ka dhimanayso, haddaad aaminsan tahay intaad shaah cabto ood biyo cabto ood cabaar sii sheekayso baa laga yaabaa inaad dhimato.
dadka u haysto in horey laga dhimanayo hadday xabadaba ku dhacday in horey laga dhimanayo maaha sidaa maaha marka waxaan rabaa saddexdaa xaalamaad mid ka mid haddaad samaysaan guulaysatee haddaad samayn weydaanna guuli idinka dheer iyo gobonimo inaad u noolaataan gamba madow xidha taasaan idiin sheegayaa waxaan rabaa inaan guddoomiyaha gobolka goday aan wax ka taabto isagana guddoomiyaha gobolka goday waa nin cabdalla ah sida aan kule maqaalaha ku maqlay ninka fiirfiir maanta ku fadhiyo oo cabdirashiid gabadha siiyey oo yarda loo siiyey degmada fiirfiir waxaan kuu sheegayaa cabdirashiid ood gabar siisay keliya degmada fiirfiir ma laha rag baa iska leh rag bay macnaha u taallaa waxaan ku dhihi lahaa nin cabdallah tahay inaad reerow xasan inaad ka baxdo dhexdooda oo aadan degmada ayada ah faraha ka qaado sharafi taasii kuugu jirtaa waan kula socdaa waxaa tahay nimankii ku qaraabin jiray xisbiyada islaamka oo dadka maaragtay ku dhici jiray diinta baa tahay wadaad isku sheega haddaba ma laha ninka aad gabadha siisay degmada ma laha haddii goday xataa intuu soo cararay aan ka soo raacdayno xataa goday kuma bixin kartid kala hadduu ku sheegta xataa ma bixin kartid haddan kuu sheegay ilaa rag buu walaalihii laayay waddankana ka soo galay rag buu aabayaashood laayay oo uu dilo god ku jira waxaan ku dhihi lahaa intay goori goor tahay ina aad ka baxdo degmada feerfeer iyo afaaraheeda iyo dakhligeeda aada cunayso waxaad cuni waa kud xoolo masaakiin oo reer xasan leeyihiin dadba iskuma jireen waxaan rabaa marka doolaal muu ahay magaciisa war waxaa magaciisa maa soo qortaan wax qashinka wajiga dakhra kule marka waxaan rabaa walaalayaal hadalkii waa badiyey waa dheereeyey inacag jar halka aan kusoo gunaanadayo inacag jara guddoomiyaha gobolka goday iyo inacag jar baan rabaa inaad kusoo gunaanado inacag jar waxaan ku dhihi lahaa inaad u dhaqanto sida nasaba markii su-aasha la weydiiyey degmada feerfeer guddoomiyaha naga qaban la yidhi wuxuu ku jawaabay degmada feerfeer anaa xukumo oo sidaan igu soo gaadhay heer kalil madaxweyne tu degmo inuu xukumo waa xaaji uguba waa xaaji uguba oo nagu cusub waaye intaa cadowtinimada la eg ee maanta uu ninka la yidhaahdo inacag jar uu u qaaday reerow cilmi ee uu ugu laayay raggoodii ee dakhligeedu uu cunaya degmada feerfeer ee uu maanta macnaha dhulkoodii intuu ugu tego uu ku laynayo uu xawaadlo uu kaga qaadanaya lacagta kursiga kulama dhalan reer isaaqna waxaan idin leeyahay inaa arrintaas ayada ah waa godob inacag jar uu ka galay reero cilmiya mara ka dhalan duur mana aha maxaan ku rahdaa nin meel kale idinkaga imaadee godobtaas waa idinla taallaa maanta uu ka galay reeroo cilmi ee dhulka uu ku jiidayo rag siyaasad waad isku qaban kartaan laakiin qabiil dhan oo degmadoodii aad ku tiri cagtaan dhalada kaga haynaya nagu waarimays 2 sano dhib ka badan insha allah waxaan rajaynaynaa aad nala sii joogin waan insha allah rajayn doonaa sida wada siyaab badan in ilaahayna ka dulqaado gebyow ninka la leeyahay ee goday joogo magaciisa dan soo helay gebyowna waxaan leeyahay waxaa ka dhiman wax yar goday dambe lagama xukumayo feerfeer insha allah gobolka qorraxay baan hoos tegi doonaa gobolka qorraxay baan isleenahay gobolka qorraxay baan ka tirsannahay degmadanadana geysanaynaa
lagama yaabana in goday dambe degmada looga taliyo haddaa gabdha siinaysaan kii degmada aad guddoomiye uga dhigtaan adeer kuwa hadday gabdhina siiyaana si sharaf leh iyo wanaag aan kula noolaan karnaa jirto oo idinka nasabsan laakiin naba inay goday kasii tirsanaato degmada feerfeer ama waa la qaadanaho oodda aan hor taagannahay in celinayno bay goday idinkugu iman doontaa oon soo daynayna la wada fadhiyi maayo in la wada joogaa haddaan aniga tago aadna fadhiyi maysid waa shay xaqiiqo biyo kama dhibcaana wallaahi inaad fadhiyeeda ku naaloonaynin ku raaxaysanaynin karinka eegay waa kugu sokeeye barqaa lagaa qaadaya barqa gudayna waxay u jirta karinka eegay waa sugnay marka waxaa la yidhi biyo intiis ku soo gaaray baan iska moosahay in wada jir gacmaha inay u shaqeeyaan oo aad u fikirto noocaas ayaan kugula talin lahaa haddaad yeeli weyday dulmi iyo xadgudub intaa ka badan degmada aad u geysatay dulmi iyo xadgudub intaa ka badan uma dulqaadanaya degmadanadan waa raaranaynaa gobolka qoraxay baan hoos tegaynaa waanan ku khaldanay shalay inaan macnaha goday aan hoos tagno aad doona ugu khaldanay absolutely macnaha waa arrin aanan laga fiirsanin bay ahayd gobolka qoraxay bay tegaysaa degmada feerfeer lagana xukumi doonaa insha allah haddii la raali ka noqdo dib dambe gobolka shabeelle loogama xukumayo ka naxoo nafta waa ninkii ka nixi lahaa iyo ninkii ku farxi lahaaba feerfeer dib dambe loogama xukumayo goday insha allah biidni illahi alkariim waxaanu hoosgeyn doonaa meesha la yidhahdo qabadahra haddaba marka gebiyow iyo gabdhaha uu ragga siinayo waxaan u sheegaynaa inaanan dib dambe nin aadan gabar u siinaynin ooda feerfeer yarad aanan lagu siin doonin baan ku sheegaynaa lagu siin maayo yarad anaana iskale feerfeer ilaahay ka sokow anuu idejiyey xor baanan ahay codkayga meeshaan rabaana ku darsanayaa meeshaan rabana aan maarata aan geysanayaa lagama xukumayo gobolka shabeelle kalaa waa habeenka calab tegay in cagjarana باي باي باكو داي ان شاء الله feerfeer inaad xukunto adoo madaxweyne kiilka wallahi waa arin waa xaajo ugu baa oo kiilka ka dhalatay way the first time oo la arko way taayada dakhliga degmada feerfeer inaad laba liqdo war ina cagjarow haddaad nin raga tahay meeshii la yiraahdo tuulada la yiraahdo awaare maxaad uga dhigi weydin nin isaaqa gudoomiye haddaan nin raga tahay cadaalad baan samaynaynaa dadkan maaragtay waa samaynaa kana yeelaynaa farraq haddaan nin raga tahay ood awooddaa leedahay oo madaxweyne aad ka tahay kililka maxaad awaare guddoomiye uga dhigi weydi nin isaaqa habartaana kuma dhacdo qoyska ugu yar ree cali baad ka dhalatay reejiisa la yidhahda barqaa wallaahi kursiga inta lagugu soo galo yaa lagaa tuurayaa waxaad marka adiga naftaada isu quuri weyda marka aniga inaad aniga saaki ii quurto oo xawaalo dhulkayga ka gado oo maxaan ku radaa maqaar saar ii keento oo dakhliga degmada dib u cunto oo tiraada halka iigu reeb gabiyow halka goday iigu reeb dakhliga degmada feerfeer iyo mustaxil iyo qalaf halka iigu reeb aad tiraado oo gabiyow uu dakhliga degmooyinkaas uu macnaha maartay kuugu qabto goday oo dib adigana akoonka lagu soo shubo ما دعي دونتو إن شاء الله هدي لا رالك النقطة هذا قلا في مستحيل هذا عني سو لو أويان أي تاي أنا ونين حد لذان أحد نين عبس دميه يعني قرحي بان هوز جيسن يعني كده بديه والله جا حكومي إن شاء الله سيد أولو صيابة إن شاء الله هدوه إيه عني هاي عن تقدراني قرحي هاي عنت nimaan maalina hiil ka helayn hoo ka helayn ee aniga waxyeeladeedu u soo taagan maalin walba inaan hoos taga kala waa habeenka xalaabtiga waa hayhata gabiyow iyo ina cagjar waxay heshiis ku yihiin saddexda degmo inay macnaha curyaamiyaan oo ay xaqooda iyagu qaataan oo gudoomiyaha gobolka gabiyow uu halka uga reebo budgetka oo sidaa iyada loogu celiyo akoonka dhinaca jar arrinka waa saxiix dibna ugu noqon maysaan
sidaa oo la socda mar haddii marka mustaxiil iyo qalaaf looma ooyaa noqotay oo dad isku duuban ah oo maaragtay ka dhiidhiyi kara arrinta cagjar iyo gebyow ay ku hayaan saddexda degmo cid ka hadasha aysan jirin anigu tiyada waan ka hadlayaayo waxaan diyaar u ahay laga bilaabo saacadan ayada ah waxaa la intuu cadow cun lahaa cali ha beesaysto haddiiba layga cunayo hantidayda ha ii cunaano gobolka qorraxay ha ii cunto iyadan hiila ka helayaa hoona ka helaya aniga maxamed soo dhow marka aniga gobolka qorraxay baan tegayaa oon degmadayda hoosgeysan oo iyaga ha cunaano intaad adiga aada cuni lahayd cabdalle iyo ree isaaq ay cun lahayn ree cabdillahi ay cunaan aniga ree warfaa ha cunaano taasaan kuu sheegaya aniga waxba la kala qarsan maayo wax la kala qarnaya ma jirto cadowba hadduuba qof iga cunaya ani wax oo ani degmadeyda aan waxba loo ogolayn oo uu cagjar uu fiirfiir xukumayo oo dakhligeediina gebyo ugu reebayo goday haddayba dhacayso qabdaharaha lagu reebto hana lagu cuno oo kuwa aan berri markaan haddii layga qaado aan inta taga aan ku dhex noolaan karayn la noolaan karayn intaan isla soo noolayn iyagaa ha ii cunaana iyagaa walaaloon ugu caloolfiyo bahani laakiin dhagax buur intaan taga degi kari maayo gudi intaan tagana kuma noolaan karo nimankii aan waddada ka mari waayo aniga marka walaalayaal waan idinku dheereeyey saddexdaa xaalo yaan rabaa inaad samaysaan reerow cilmiga hiiraan joogo saddexdaa xaalo midkaad yeeli lahaydeen saddexdaa xaalaad saakii gunnimo iskaga rogi kartaan saddexdaa xaalo yaad gunnimo iskaga rogi kartaan inaad boorar qaadataan oo codkiina meel dheer gaarsiisaan inaad macnaha ka guurtaan oo tirahdaan maalin un yowman bay soo noqon doontaa kan kursigu ku fadhiyay bal hadduu isaga cunayo ama uu xawaadlo xukumayo xawaadlo ood wuu soo jabsana markii laga tage oo maaragtay waxa u dhiman waaba kuwan shirka keenaye inta aanan laydan gumaadin isagana ha ku calaf la-aado adigana carada ilaahay naftaada oo la cirsa ama qabdahare u guuro ama jigjigo oo soomaali weyn degan tahay ama xamar iskaga guuro ay tooliyo hadalka dhabtaa kaa weye tan saddexaad waa dad yar oo fara ku tirise iska qabta oo maxaan ku raadaaye oy ugu horeeyaan maalay sarfi axmed ingiriisi iska qabta haddaadna iska qaban karin waa saddex nin waa cabdirashiid maalay sarif iyo ninka la yidhahdo axmed ingiriisi labada nin xasaanad ma hayaan hadduu kan xasaanad ku gabanayo oo eeya ka soo horeeyaan labadan xasaanad ma hayaan waa dullinimo waxaad u yeeshaan markaad u qaayitaan waa dullinimo waxaad u qaayibtaan marka saddexdaa xaalo in mid samaystaan waad nagmaadsantihiin ina cagjaran waxaan leeyahay degmada feerfeer iska tuf hala gaarsiiya ina cagjaran iyo maxaa la dhahaa kii gebiyo maa lahaa ha iska tufaano degmada feerfeer hadaayaano faraha ka qaadaano hadalka dhabtaa kaa weye waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu